kulankan oo ay soo qaban qaabiyeen ardayda wax ka barata dalka Turkiga gaar ahaan ururka ardayda ay ku mideysan yihiin magaalada Ankara ee caasimadda wadankani kulankan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa amaba looga hadlayay buddigna uu ahaa sidii dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalkani Turkiga imanaysa loogu dhiiri gelin lahaa in ay wax bartaan kula naabtaan dalkoodii haddaba daawadayaal kulanku waxa uu dhacay sida tan السلام عليكم ورحمة الله أدر magacaygu waa Abuukar Cawaale qaadid baa la igu naanaysaa dadku normally waxa la igu yaqaanaa wacyigelinta ololaha qaadka laakiin wajiyada caawa ee hor fadhiya dad qaad cuna ma aha waa dhalinyaro academic ah clean ah and I am horta very proud waana ku faraxsanahay inaan la kulmo aad waqtigiina isiisaan dadaalkiina iyo juhdigiina iyo waxbarashadiina horta lafiina u saabiyo waxaad tihiin rajadii Soomaaliya waxaad tihiin mustaqbalkii Soomaaliya waxaana jecelahay inaan idin xasuusiyo mid walba idinka idin kamid ah ducadii waalidiinteen noogu duceeyeen aniguna aan isku dareen mid walba saasa inta kor loogu qaadaa la yiri Ilaahow ka dhig kii dalkiisa iyo diintiisa iyo dadkiisa ma anfaca arrintaas weeyana mawduuca aan rabo inaan laba kalmadood idinka dhaho ducadaas waalidkeena waxa ka muuqata hanweyni lama oran Ilaahow uu noqdaa mid Ankara inuu jaamacad inta ka dhigta nice apartment gaari yar oo qurux badan gata isdabara waxa la yiri dalkiisa iyo dadkiisa iyo dantiisa iyo diintiisa dalkeena iyo dadkeenu maanta inoogu baahi badan yihiin as an activist someone bulshada activist ah wax ka bedela oo aan ku qabweynahay oran karo yes aniga Abuukar Cawaale la dhahaa waxaan ku guuleystay inaan UK qaad ka joojiyo waxaan hortiina u imid caawa inaan idin dhaho yes idinkuna wax waa bedeli kartaan star meel un ka bilaaba Soomaaliya waa wada fursado waa wada opportunities waa wada daldalool waa wada caqabadahaas change makerska la raba inay wax ka bedelaan waa idinka marka change sameynaysid waa lagu maagayaa bilowga waa adag yahay waa iska difficult caqabadaha ka hor imaanaya victory guushana sidaadaba more bay macaan sii noqotaa the more lagu challenge garayo the more caqabaduhu ka hor yimaadaan oo aad u dhabar adeegtid and remember activismku waa skill waa xirfad adduunkan waxaa la joogaa la isdardarayo haddaadan positionkaaga istaagan oo aadan goolkaaga difaacan oo aadan xaquuqdaada u dagaalamin oo aadan xaquuqda communitygaaga u dagaalamin cid u dagaalamaysa male marka lot of you international relations waxaan maqlayaa teachers waxaan maqlayaa different fields ku jira idinkoo xirfadaas iyo aqoontaas haysta haddaad ku dabaqdaan oo dhahdaan let's see Soomaaliya aniga dantayda iyo shaqadayda iyo personal goalkayga waa yeelanayaa laakiin dalkayga waxaan u sameynayaa inaan tusaalaan idin siinayaa Ankara ama Istanbul ama Turkiga oo dhan dhalinyaro fresh ah timaada wadanka timid oo luqadii aan aqoon oo intii aad soo marteen hadda rabo kow inay ka bilaabaan dhalinyaradaas oo kale mentor baad u noqon kartaan waad gaadgarayn kartaan talooyin baad siin kartaan tusaalooyin baad siin kartaan hadday caqabado ka hor yimaadaan luqadii hadda baratay systemkaad ku jirtaan Turkish government baad u loobi garay kartaan we need more community centers we need community insaan loo sameeyo we need inaan change makers isbedel doonku dadka adduunka wax ka bedela waa dad who are you adigu yaa tahay markaad leedahay anigu wax ma bedeli karo waa bedeli kartaa dalkiina iyo dadkiinaana idiin baahan halkaana waxaan ugu imid inaan idin dhaho aniga oo aan sidiina jaamacad ka soo bixin oo Marfish University ka soo baxay ba one of the greatest country in the world UK government baarlamaankeeda intay istaagay ku yiri no sharcigan waa inay wax ka bedeshaan of course way fududeyn 9 years bay qaadatay struggle badan baan marnay bal alxamdulillah hadda eeg noloshii dhan baa isbedeshay bulshadii way baraartay fikir dhashay buu ahaa marka waxaan jecelahay passionkaas iyo xirfadihii aan activismka oo aan shaqadan ku bartay inaan idinkana idinla wadaago oo aan idinku dhiirigeliyo bilaaba from somewhere
meel un ka bilaaba. Tomorrow morning hadda the wall of social media la jooga. Tomorrow morning poster haddaad design garaysid oo aad dhahdid saan iyo saan sax maaha, saan iyo saan waa in laga bal baroobe reaction ka fiiri, dad baa ku maagaya, dad baa ku oranaya oh masha Allah, keep going. laakiin marka hore hel wax aad passionate ka tahay oo aad believe garaysan tahay oo qalbigaaga aad oranaysa yes 100% waa sax. markaad heshid waxaas ku mintid, haddii mid walbo inaga ka mid a ama dhalinyaro badan oo saa kacdoon u samaysa, madaxdaa la challenge garayn karaa, baarlamaanka la challenge, madaxweynaha la challenge garayn karaa. You can actually haddaad hawshaas isku duubni u samaysaanna in stage waxaa gaari doontaan the Minister of Education, ra-iisul wasaare, madaxweyne farmaajo, idinkoo tuuliskiina iyo linkigiina iyo xiriirka aad Turkiya leedihiin idinkoo isticmaalaya inaad dhahdaan actually annagu dhalinyaranahay civil war baan ku kornay, maanta waxaan rabnaa wixii aan soo marnay inaysan kuwa generation ku dhicin, and we would like to invite and challenge madaxweynaha dowladda federaalka inuu na soo hor fariisto. You can do waa demand garay, waa lagu ignore garaynaya, laakiin you can challenge, use media, put pressure. aakhirka soo socdo imaanaya. marka waxaan idin leeyahay dhiiranaada, isbedel doon noqda, dalkiina iyo dadkiina waa idin baahan, guul baan idin rajaynayaa, waana ku kalsoonahay inuu idinku jiro tobanaan Abuukar Cawaale dadka energy badan ka dhalinyaraysanoo ka smartsan. marka ku dhaqaaqa idin leeyahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi.